جبريل إبراهيم عبد الله oo kamid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya oo mudooyinka ugu dambeysay booqasho ku tagay maamulada ka jira dalka iyo gobolada dalka Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo xarunta maamul goboleedka Jubbaland waxaana si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo halkaas oo boqolaal dadweyne iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland ay si diiran ugu soo dhaweeyeen waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb qaadanaya qaybaha fanka maamul goboleedka Jubbaland iyadoona halkaas lagu soo bandhigay ciyaaraha kala duwan oo isugu jira dhaantada diisowga iyo kabeebeyda soo dhaweynta musharaxa kadib ayaa holka nasashada garoonka caalamiga ee magaalada Kismaayo waxa ugu horreyn warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajil afayeenka odayaasha dhaqanka ugaas xiiray iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni waxaan maanta runtii farxad noo ah inaan soo dhaweyno musharaxii ugu horeeyay madaxweynaha noo yimaada waxaan baa dad badan baa sharaxan laakiin Jibriil waa ninkii noogu soo horeeyay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan la jecelahay haddii aan la idmo Jibriil madaxweyne musharax ku soo dhawow magaalada Kismaayo diyaar bay u tahay inay soo dhaweyso cidii ay u barato inay mustaqbalka Soomaaliya wax ka tarayso musharax Jibriil oo soo dhawow dalkaaga iyo dadkaaga ku soo dhawow waabariga shacabka lagu qariyaa leeyri Soomaaliya way gaamurtay gaar ahaan Jubbaland ku soo dhawow dad ku jecel ku soo dhawow calafkaaga Ilaahay baa ku xiran tahay on behalf magaca gobolka waxaa sharaf ii ah inaan ku soo dhaweyno magaalada madaxda meelgaarka ee gobolka Jubbaland ana xarunta gobolka Jubbada Hoose mudane musharax Jibriil waxaan leenahay soo dhawow gurigaagii waa hoygaagii sharaf bay noo tahay inaan ku soo dhaweyno waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto fursadan Jibriil waa musharax madaxweyne intaasi kadib musharaxa u taagan xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya Jibriil Ibraahim Cabdille ayaa goobta khudbad ka soo jeediyay waxaana uu ka hadlay abaaraha ka jira deegaanada Jubbaland iyo sidoo kale dagaalada ka soconaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay inay midnimada ilaaliyaan deegaanka waxaan rabaa laba eray inaan ka yiraahdo xogaa waxa jira abaaro deegaanka haysta xaqiiqdii ummadda Soomaaliyeed daawanaysa gudaha in loo duceeyo culaysyada abaaraha jiro deegaanada qaarkood ee afmada u horeyso biilaana ka jirto waxaa la rabaa dadka daawanaya kulligeen inaan kaalin ka geysano oo qaalin laga qaato in colaadaha ka jira guud ahaan dalka gaar ahaan colaadaha soo noqnoqday ee mudug hadda ka jira iyo galgaduudba inaa u duceysaan wax daadanaya waa dhiig Soomaaliyeed waxa caaw dhimanaya waa qof Soomaaliyeed waxaan hubaa oo shaki ka jira la heshiin doono inta marba hadii la heshiin doono oo dad walaalaha abti adeer leeyahay waxaan qabaa dhiig badan iyo daad hal joojiyo inaan u duceyno oo dhiigaas baxa la joojiyo waxaan baaq u dirayaa in dadka deegaankaas jooga lagu adkeeyo musharaxnimadeeda waxyaabaha aasaaska u ah waxa kamid ah howlihii qabsoomay quruxda badnaa la sii adkeeyo waxaan ballan qaadayaa Ilaahay wax ballan qaadi karo in aniga iyo mas'uuliyiinta imaan doonta howlahan ku jira ku guuleysano waxaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ugu baaqayaa in loo hiiliyo in wadankan uu ka baxo culayska haysto in loo hiiliyo isbedel in loo hiiliyo wanaaga si kastaba ha ahaatee waa musharaxii ugu horeeyay ee u taagan xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya ee soo gaara magaalada Kismaayo isla markaasina bulshada reer Jubbaland ka codsada inay siiyaan codkooda ku aadan musharaxnimada dalka Soomaaliya Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga caalamiga Star magaalada Kismaayo